بسم الله الرحمن الرحيم أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeenii taxanaha aad kaga barateen maanta waxaan ka hadli doonaa tenniska shanaad ee ah present perfect continuous tennis waxaan kasoo hadalnay 4 tennis waan soo kalfaanay tennis koowaad oo ah present continuous tennis waxyaaba uu ka hadlo qaabka u shaqeeyo intaba waan kasoo hadalnay sidoo kale waxaan kasoo hadalnay tenniska labaad oo ah simple present tennis waan soo qeexnay waxyaabihiis dhan waan kasoo hadalnay waan kasoo sheekeynay sidoo kale waxaan kasoo hadalnay tenniska saddexaad ee ah simple pass tennis isagana si lamid ah kuwa hore oo kale waan kasoo hadalnay waan kasoo sheekeynay intuba sidoo kale kan ugu dambeeya tenniska ugu dambeeya wuxuu ahaa tenniska afraad oo ah simple figure tennis isagana waan kasoo sheekeynay sidaas lamid ah maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno tenniska shanaad ee ah present perfect continuous tennis sida nooga muuqata slide-ka balse ka hor inta aan u gudagelin barnaamijka ama cashirka waxaan rabaa janaalku waa janaal cusub haddii uu yahay markii koowaad ee aad daawato ama aad aragto janaalkani fadlan subscribe share like intaba dhag noogu sii si aad u hesho casharo grammar tennisyo practice intaba adiga ku xiisa geliya intaas waa codsi okay present perfect continuous tennis inta aan u gudagelin cashirka waxaan rabaa horta concept ahaan ama concept guud inaan ka heesano tenniska shanaad ee ah present perfect continuous tennis muxuu yahay muxuu qabtaa qaabka u shaqeeyaa intaasaan waxaan rabnaa si concept ahaan inaan u qaadano inta aan u gudagelin cashirka waxaan rabnaa concept ahaan inaan u qaadano horta tenniska shanaad ee ama present perfect continuous tennis muxuu ka hadlaa ama muxuu yahay aan rabnaa inaan sheegno tenniska shanaad ama present perfect continuous tennisku wuxuu yahay waa dhacdo ama falkaasoo dhacayay welina socda tenniskan gabi ahaan wuxuu ka hadlaa dhacdo dhacaysay welina socda wuxuu ka hadlaa dhacdo dhacaysay welina socda ama fal dhacayay welina socda ayuu ka hadlaa for example tusaale ahaan waxaan dhahay waan dhigayay cashirka goortii uu macalinka i arkayay baan dhahay waxaan dhigayay cashirka goortii uu macalinka i arkayay baan dhahay fiiri maxaa waaye laba jumlo waa wayna falkan wuu dhacayay wilna wuu socdaa wuu dhacayay wilna waa mid socda ma joogsan wil wuu socdaa oo waxaan dhahay waxaan dhigayay cashirka baan dhahay goortii uu macalinka i arkayay baan dhahay waa fal dhacayay wilna socda sidoo kale waxaan dhahay example labaad waxaan dhahay tusaale ahaan waan arkayay baan dhahay waan arkayay dhacdada goortii uu booliska xirayay askariga baan dhahay cafan goortii uu booliska xirayay tuuga aan dhahay waan arkayay baan dhahay dhacdada goortii uu booliska xirayay tuuga maxaa marka waa dhacdo dhacaysay welina socota ay ku hadlaa tenniska wax kale kama hadla haddii lagu weydiiyo oo la concept ahaan naga sii tenniska shanaad muxuu ka hadlaa adigoo concept ka siinaya maxaa leedahay waa dhacdo dhacaysay welina socota waa dhacdo dhacaysay welina socota baa leedahay bis waa dhacdo dhacaysay welina socota okay aan u gudgalo marka tenniska waan fahnay marka tenniska wuxuu ka hadlo waxaan tenniska wuxuu ka hadlaa fal dhacay ama dhacdo dhacaysay welina socota ayuu ka hadlaan dhaanay okay present kaasaan olla what is a present perfect continuous tense baan olla what is here present perfect continuous tense baan olla muxuu yahay ama maxaa la yiraahdaa tenniska shanaad ee present perfect continuous tense present xaadir perfect continuous socda tense dhaca is used waxaa loo isticmaalaa for an action ficil which ficilkaasoo was began bilaabanayay baa tiri in the past waqti tegay and still continuous welina socda waxaa tiri tenniskan wuxuu ka hadlaa waxaa loo isticmaalaa
dhacda dhaceysay welina socota. fiiri concept ahaan tenniskan waxaa loo isticmaalaa dhacdadaasoo ahayd mid bilaabanaysay ama mid dhaceysay welina socota and still continuous baa tiri and still welina continuous ay tahay mid iyadoo weli socoto baa tiri ku celi marka qeexitaanka hadii what is a present perfect continuous tense hadii maxaa leedahay present perfect continuous tense is used for an action which was begun in the past and is still continuous baa leedahay. Okay, muxuu ku shaqeeyaa marka formula ahaan muxuu ku shaqeeyaa tenniskan formula oo ku shaqeeya ama qaacidada ku shaqeeya tenniskan maxay tahay what is the formula of a present perfect continuous tense baa tiri tenniskan wuxuu ku shaqeeyaa subject kan ficil sameeye maxaa keenay ficil sameeye kan ficil sameeye maxaa noqon karaa mid magac ah ama mid magacuyaal ah ficil sameeye wuxuu noqon karaa mid magac ah ama mid magacuyaal ah kadib kan auxiliary uu ku shaqeeyo tenniska shanaad auxiliary maxaa have been iyo has been tenniska shanaad waxa auxiliary u ah have been ama has been wixii have ku shaqeeya have see wixii has ku shaqeeyna has see tenniska shanaad marka la joogo have waxa ku shaqeeyo kuwa plural-ka ah haddii ahaan lahaayeen kuwa noun-ka ah ama haddii ahaan lahaayeen kuwa pronoun-ka ah jamac waxaa ku shaqeeyo have iskale hasna waxaa iskale kuwa singular haddii ahaan lahaayeen kuwa pronouns ah ama haddii ahaan lahaayeen kuwa nouns ah oo laakiin singular ay yihiin hasay ku shaqeeyaan marka la joogo tenniska shanaad havena waxaa ku shaqeeyo kuwa plural-ka ah sidoo kale sakarta laga rabaa have been ku shaqeeyo kuwa plural-ka haddii ahaan lahaayeen nouns ama haddii ahaan lahaayeen pronouns hasna ku shaqeeyo kuwa singular-ka ah may kuwa kuwa singular-ka ah haddii ahaan lahaayeen kuwa nouns ah ama haddii ahaan lahaayeen kuwa pronouns ah aan ku shaqeeyo kadib alla ku dar plus verb ku dar verb markaa keentidna kadib keen alla plus ku dar ing kadib waxaa ku dartaa object ficilka guddoome marka qaacidadan waxay isleeyihiin qaacido tennis ah marka anigoo fiirinayno qaacidada si fiican fiirinayno sidoo kale waxaan soo qaadayna qaacido tennis ah tennis koowaad ah marka tennis qaacidadan iyo qaacida tennis koowaad isku egyiin waa mas'aash meesha taala sax waa isku egyiin laakiinse markii laga reebo auxiliary-da kan auxiliaries waxa way have been iyo has been kaasna waa am is are waa laakiin inta kale way isla ogyihiin fiiri subject waa isla leeyihiin verb waa isla leeyihiin ing waa isla leeyihiin object waa isla leeyihiin laakiin maxay ku kala duwan yihiin auxiliary ku kala duwan yihiin kan auxiliaries waxa way have been iyo has been waa kaasna auxiliaries wuxuu ahaa am is are oo ahaa intaas bis ku kala duwan yihiin marka laakiin inta kale maxay kuwa same ah okay macnaha marka formula of present perfect continuous tense waxa way subject ficil sameeye can kadib can have been ama has been kadib ku dar verb kadib ku dar ing kadib ku dar object aan dhahna marka okay example ku saaragno what is ama waxaan like give for example is one example of a present perfect continuous tense all like go I have been reading this book since this morning bande anigu battery have been reading waan aqrinayay battery this bookgani since this morning ilaa iyo saaki baan aqrinaa battery since this morning maxay tahay adverb of time isla tahay marka since this morning since afternoon the arrangement adverb of time isla tahay marka okay waxaad dhahday I battery anigu battery have been reading waxaan aqrinayay battery this bookgani since this morning ilaa iyo saaki baan aqrinayay battery buugan battery su'aal kaliya have I been reading this book since this morning miyaan anigu aqrinayay buugan ilaa iyo saaki did magadhig I have not been reading this book since this morning anigu ma aqrinaynin battery buugan ilaa iyo saaki anigu ma aqrinaynin battery buugan ilaa iyo saaki marka tenniskan shanaad wuxuu ka hadlaa ama concept ahaan ama guud ahaan sharaxaad inaan ka bixiyo fal dhacaayay welina socoto ama dhacda dhicisay welina socoto ayuu ka hadlayay tenniskan cashirkeena maanta halkaas ayuu ku egyahay sida hore usoo sheegayba janalka waxaan waa janal cusub haddii uu yahay markii koowaad ee aad daawato janalkani ama aad aragto fadlan ha ka baqiilin ha ka jeesan ha ka tagin
fadlan subscribe, share, like intuba dheg noogu sii si adiguna aad u hesho casharo, garaamaro, tensiyo iyo practiceyo adiga ku xiisi geliya aad ka heli doontaa. Marka dheg noogu sii halla imaamado janaalku waa janaalkiina, janaal kale ma ahan. Idinka kor u qaadi kara, idinka dhisi kara, idinka meel sare gaarsiin kara. Marka imaamada lagu tuuro janaalkani intaas dhan aan soo sheegay dheg dheg lagu siiyo gambaleelkan hala furto.